okay cashirkan marka wuxuu noqonayaa fundamentalka iyo qaabka fundamental ahaan niisyada wararka lacagaha ka soo baxaya. Wararka horta cashir horaa jiray dee aan ku dhiganay wararka iyo wararka ugu saameynta badan. Haddii wararka aragti inaad ugu saameynta badan eegtid cashirkaasaa daawanaysa cashirkii ka hadlayay fundamentalka. Okay waxaan ka hadlaynaa sida warka iyo lacagta suuqa technicalka la isugu xidhi karo ama sidaas ula isticmaali lahaa tusaalahaan newska sidaa u tarar garayn lahayd oo kale. Okay haddaba waxaan rabnaa marka hore inaan ogaano newska. bogsadan cas qof walbuu garanayaa, qof kasta dee soo haddii jiraan dhalinyaro aan hore casharka gaadhin laakiin way gaadhin. bogsada cas oo dhan ay sheegaysaa macnaha war saameyn leh inuu soo baxayo. Okay sidoo kale inta badan wararka la eego waxa weeyaan wararka doolarka soo baxa. wararka soo baxa unbaan focuska inta badan ku haynaa. wararka de doolarka maadaama lacag ay noo jihayn doolarka ugu muhiimsan, marka waxaan eegaynaa wararka doolarka soo baxaya. Okay doolarka maxaa ka soo baxayay maanta? waxaa ka soo baxay labadan war, ko retail sales iyo retail sales. labadan war baa ka soo baxayay. Okay xaggan horaan usoo dhiganay waxa ay tahay iyo sida loo kala isticmaalayo iyo waxaasoo dhan horaan usoo dhiganay. marka aragtid haddaba warka horta newsku sidiisaba saddex buu noqdaa marka suuqa loo eegiyo. qodobka koowaad wuxuu noqonayaa news raacsan jihadii suuqa, oo yacni jihadii suuqu newskaas raacsan yahay oo suuqa kama soo horjeedo. waa markee? waa marka suuqu cusub yahay newsku jihada suuqa kama soo horjeesin abadan. Okay marka kale waa meel reversal ah jooga, meel reversal yani meel lagu kala wareegi rabo suuq jooga. tusaalaha suuqa bay u socda meel reversal u jooga, newskaas reversal sameynaya yani suuq kala wareejinaya. markaasoo kalena hee waa meel. Okay qodob mid saddexaad baa jira hadda. mid saddexaad waxa weeyaan in newska soo baxaya uu noqdo mid ay isku khilaafsan yihiin, yani waxa la filayo iyo sida iyo structureka suuq ama technicalka mid iskhilaafsan yihiin. haddii labadaas iskhilaafsan yihiinna suuqaas maalinka newska lama agmaro, waa liquidity dhinacii doonaa bay baa la geeya sel baa la geeya bay baa la geeya sel baa la geeya maalinkaasoo kale ma geli karo. Okay laba maalmood waa la tarar garayn karaa, weliba maalinka reversalka xataa dee maalin hubtid maaha, laakiin maalinka keliya newska tarar garayn kara waa maalinka biaska iyo newsku israacsan yihiin oo kale. Okay maalinkaasoo kale haddii structurekii suuqa iyo newsku su ka waafaqaan, okay waa tarar garayn kartaa maalinkaas. maalinkaa waa tarar garayn kartaa, laakiin newskaas ka ilaalinaysa waa kee? waa ka reversalka sameynaya. dee reversal si u raacdan ma garan karo dee yaa ku caddayn reversal. hadduu doon reversal hadduu doon ma sameynay maalinkaa. marka eeg waad gaadhaysaa heer haddaad reversalka tarar garisid, laakiin newska sidiisaba waxa fiican kaad garanayso inaad tarar garisid. tusaalahaan jihadii suuqa iyo newska iska raacay, suuqa meel muhiima kuu tegey waa soo raacday good newskii iyo suuqa slaasha. marka waxaan rabnaa macaaw inaan isla aragno bal marka suuqa newskii horta newsa maanta soo baxay, newskii maanta soo baxay ma jihadii suuqa iyo newska ma isu raaceen mise waa iska soo horjeesteen? sidoo kale mise waa iskhilaafeen oo mise reversal buu ahaa? inaan intaas la ogaano. Okay newska sidiisaba xagga waa previous, xaggaas sarada arkaysaan previous. Okay xagga waxa ujeedaan xagga previous inay ku qoran tahay previous, yani waa markii hore siduu ahaa, markii hore lacagtu siday ahayd. Okay warka lacagta ka soo baxaya markii hore siduu ahaa weeyaan. Okay waa kan markii hore wuxuu ahaa 0.2 ayuu ahaa. Okay waa markii hore siduu ahaa. meeshan waxa weeye wixii la qiyaasiyey forecast waxaa la qiyaasiyey inuu 0.2 sii ahaan doono. Okay haddii kala qiyaasayo haddii kala qiyaasayo uu ka liito suuq, hadda uu ka liitay hadda su'aalka maxaa soo baxay inuu ka fiicnaado xataa kii la qiyaasiyey soo maaha. maxay ka dhigan tahay warkaas? waa positive, lacagta doolarku bay aadaysaa bay ka dhigan tahay. waa fundamental ahaan maaha technical ahaan. Okay fundamental ahaan waxay ka dhigan tahay maadaama wixii la qiyaasayey de wax ka fiican ay soo baxeen, maxay ka dhigan tahay lacagta doolarka bay aadaysaa. Okay qodobka waa isla fahanay soo maa. waxaan ku yidhi markood maxay ahayd previous waa wixii u horreeyay markii hore lacagtu waxay ka joogtay dee newskan corretailka markii hore maxay xoguu joogay 0.2 jooga soo maa. Okay maxaa la qiyaasiyey inuu noqdo
wuxuu noqonaya warkan in noqdaa la qiyaasayay 0.2giisi in lagu ilaaliya la qiyaasiyey oo aan halkiisaa dhaafin. laakiin maxaa dhacay? waaba kasii fiicnaadayba. okay, marka maxay noqotay lacagtii bay. waan isla eegaynaa marka. haddii structureka doolarka bay ahaa oo newskuna bay noqdo, waa iswaafaqayaan. newskaas bay baadiya waad ka faa'iidaysan kartaa. okay, waa kaan kuu sheegiyey. okay, newska kan kale aan eegno. waa isla isagii, waa kii kale ku xigay sita salaskii oo bilaha ahaa. okay, xaggan waxaan ku arkaa 0.3 soo ma arkaysid. 0.3gaas waxa weeyaan waa wixii uu markii hore newsku ahaa. xaggan previous mar walba intan waa wixii markii hore newsku ahaa. okay, siduu ahaa markii hore weeyaan. midna waa mid la qiyaasayo, midna waa midka soo baxaya. okay, la qiyaasayo, qiyaastuna waa intan dhexe. intaa dhexe waa inta intaan dee newska soo baxa la oranaya xaragsi qiyaastii iyo halkan ku qoran newsku intuusan soo bixin. markuu soo baxo dee waaba maruu soo baxay xaggaas kusoo qormaya. okay, okay, kan aan eegno marka. zero muxuu ahaa? 0.3 soo maaha. maxay qiyaasiin? 0.4. يعني inuu wanaagsanaaday qiyaasiin. intay qiyaasiin xataa uu kasii fiicnaaday 0.6 buu noqday. taa macnaheed maxay tahay haddana? warkaa kalena waa okay, waa positive. labadii war oo waxa weeyaan kan sare iyo kan kale maxay soo baxeen? positive. war doolarka u fiican oo dee kor sii geynay soo maaha. okay, qodobka waa isla fahnay. marka waxaan tegaynaa haddaba lacagta doolarka. doolarkaan tegaynaa si aanu aragno bal wixii maxaa ka dhacay meesha. okay, newsku wuxuu soo baxay 4tii barhka. qofka xaggan aan calaamiyo. qofka tusaale ahaan aan saacad u saxnayn oo kale, xaggan baa ku dhufanaysaa hoose ay ku qoran tahay. halkan maxaa ku qoran? 9:20. halkaas balastiriga ah, balastiri ka dhigo. waa haddii aad waddanka joogtid balastiri ayaa ka dhiganaysa. okay, haddii kolba waddankaad joogto ku xidhan tahay meeshan baad ka dhiganaysa. okay, haddii aad saa ugu dhufatid oo kale, saa ugu dhufatid arkaysaa waddamadii oo kun. so waddankaaga saacadiisa ayaad ka dhiganaysaa. dee saas maad ugu dhufanaysaa. tusaale ahaan waxaan rabaa inaan balastiri ka dhigto. saasaan hoos ugu soo raacaya, hoos ugu soo raacaya. okay. okay, nairobi maarta. xagga nairobi haddaan doona ka bedelaya, waxaan ka dhigaya kuwait, istanbul waa ka dhigan karaa. kuwaasoo dhan ka dhig, balastirigaasoo dhan ka dhigi karaa. okay, baqdaad waxaan leeyahay aawe balastiri saa doonta ka dhigan kartaa. intaa balastiriga ka dhigan kartaa. hadda waxaan ka dhiganaa istanbul baan ka dhigan. okay, just same. okay, marka xaggaa yar hoose ku dhufanaysa waad xaggaas kaga soo baxaysaa. kadibna waad iska saxaysaa marka si aad ogaatid timeka. kandhaladan timeka ay ku ahaayeen waa kan. intaas hadhowtoole qof laa samaysto. okay, waxaan eegaynaa kandhalkii maanta marka liidinta yar ee xaggan liidinta yar ee balaaska ah oo tan hadda bahalka aan wadwado ah. xaggeeda hoose markaad tegtid, xagga hoose waxaad ku arkaysaa 4/17 January. marka xagga u dhaqaajiyo, saa u dhaqaajiyaan, xagga u dhaqaajiyo arkaysaa 4/4 12 xagga markaa eegtid, xagga u dambeysa markaa eegtid 17 January 2024 12 barka xagga sheegaysa soo maa. soco den waxaan rabnaa afartii xaggaa joogtaa. okay, afartii barhkii kandhalka dhaqaaqa waa kaas. afartii barhkii kandhalka dhaqaaqa waa kaa. maxaa ii sheegaya? okay, haddii aad hadda waxaan kuu sheegay aad fahmi weydid waxaad soo qaadanaysaa sud. okay, xagga markaan joogno waxaan soo qaadanaa bahasha vertical line ku qoran tahay. okay, xaggaasaan ku jiidanaa marka. okay, waa kan marka intaan sheegi. xagga maxaa ku hartaa 4/17 bisha January 2024. xagga maxaa ku hartaa 4/16/45 waa 4/45. okay, waa soo jiidana marka waxaan eegaynaa xaggaan u jiidanaa ku wadana ilaa iyo intay ka tegeysa 4 barhka. marka 4 barhka ayaa daynaa soo 16:30. okay, itis waxay ka dhigan tahay kandhalka u horreeyay newska furmay waa kandhalka. kandhalkii newska xaggaas ka dhaqaaqa. okay, kandhalka u horreeyay newska waa kaa. marka eeg waxay ka dhigan tahay newskeenii
iyo structurekii suuqa. Horta newskan waxaa rabtaan bay noo aaday. Okay. Sidaan doon so saameyn aad u weyn ma lahayn oo suuqa higher time frameka wuxuu joogay point of interest. waxaasaan gaari doonaa marka point of interest waxyaabaha hadda aan ka hadlayo yani meel supply uu joogay saasaad u fahamsan meel supply uu joogay meel supply waxa taqaana in laga celiyo oo sel looga celiyo marka meeshaasa joogay so marka newsku saameyn badan mu yeelan taas way buu saameyn badan u yeelan waayo haddii aan tagno marka haddii aan dhisno oo aan isla eegno suuq bay maaha bay buu ahaa okay oo waay siduu bay ku ahaa waa inaan dhisnaa marka higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high okay suuqana xaartayna bay u socday marka oo abtar inoo ah maadaama suuqaynu bay inoo yahay newskeenuna muxuu inoo soo baxay positive soo maaha okay maxaa isu kan waafaqay marka newskii fundamentalkii iyo technicalka isu kan waafaqay maalinkaasoo kale waxaan ku yidhi fursad waa ka raadsan kartaa maalinkaasoo kale waa okay waayo waxaa isu kan waafaqay biaskii suuqa yacni jihadii suuqa iyo newskii soo baxay waxaa dhacaysa maalmaha qaar iskhilaafayaan markaa okay maalmaha qaar iskhilaafayaan baa jirta iska soo jeesanaya tusaalahaan suuqu taagaya meel laga laabanayo maadaama taagan yahay meel laga laabanayo taagan yahay oo reversal noqon rabto suuq yacni kala wareegi rabo tusaalahaan xaggaasoo kale waa suuq meel ka kala wareegi rabo newskaa soo baxay bum kan buu jebiyey lower highgan dambeeyey kadib maxaa dhacay saas soo laabtay waaba sii socday waaba ordayba newskaasoo kale saameyn buu yeelanay muddo dheer maadaama suuqu bay usii socday markaba waynu kala wareegay suuqu markii hoos u cararay okay qodobkaana saas inaan iskala fahnayaan rajeynaya marka haddii aan xaggii newskeena u laabano waxaan filayaa waa fahanteen qodobkaas suga horta one more an example ka bixiye inaba okay waxaan eegaynaa beri waa khamiis soo maaha beri news ma jiraa okay berito news baa jira marka taa beriyaan isla eegina marka hadda waxaa jira waxa weeye unemploymentkii kan baa berito soo baxay afartii bar soo baxay qiyaas eeg berito news baa jira doolarka waa kan doolarku news ka soo baxay okay sidoo kale fims waxaas saameyn male kuwan iska daa tan baa ku cadcas aad saameyn male lacagtan waxaa kasoo baxayaa saddexda caawa iyada nagada doolarka muhiima okay doolarka maxaa beri kasoo baxaya okay let's go ha okay doolarka berito waxaa kasoo baxaya warkaasaa kasoo baxaya warkaas markuu kasoo baxaya xaggan maxaa aragtaa previouska muxuu ahaa 202 okay maxaa la qiyaasayaa 206 daamins waxay rabaan inuu berito fiicnaado haddii warka xagaa ka jira oo 206 haddii warkan soo baxa uu ama noqdo ama uu ka yani hadduu 206 noqdo suuqaas baybi alcagsi yani wax laga filaya positive baybi haysa okay newskaas baybi saameyntiisu noqonaysaa haddii 206 la filayo laga hooseeyana de waxay noqonaysaa minus bay noqonaysaa laakiin weynaysan dee kana kasii hoos haddii kana kasii hormayso bas wey waaba khalaas laakiin haddii kan ka hoos marto la filayo waa sel laakiin haddii ay labadaba ka hoos martona maxaa dhacaya haddii kan kii hore ahaa previousky iyo kii forecastki la qiyaasiya ay labadaba ka hoos waa seliyad marka waa leadership finish wey lacagto marka already laakiin waxaa dhacday marka qaar kan previouska ah iyo kan kale oo la qiyaasayo oo kii la qiyaasaya laslaa waxaasu noqon doona tusaale waxa la qiyaasayay kan qiyaasta in uu kan macnaha soo bixi doono uu la mid noqdo kii hore saasay tahay haddana waa mayne because of si lama rabin dee inuu kii hore la mid noqdo waxa la qiyaasayay inuu intaas noqdo ma fahanti laakiin hadduu kaasoo kale noqdo okay 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 warar kale tijaabina marka bal aan dib u raacno soo hadday jirto war noocan hadda waxay sharaxayn oo kale ay ku dhacday
okay card maalinkaas maxaa ka soo baxayay doolarka maxaa ka soo baxayay okay maya okay warkan aan eegina marka warkana muhiim xilli soo baxay 11 January soo baxay xaggaas investigina isla arkina okay warkan waxaa la dhahaa CBA baa la dhahaa waxaa soo baxay kii bilaha iyo kii yeerliga iyo koor CBA adigu sida warkaas ka soo baxay doolarka saddexda wararkan warka saameynta leh CBA gu saameyntiisu wataa okay aan eegina maxaa la qiyaasi marka 0.3 la qiyaasi 0.3 noqday kaas waxba iskama bedelin okay warwarka qaar laakiin hadda warkan soo maaha CBA war kale haddii uu noocan oo kale ahaan lahaa waxaa laga yaabaa inta la qiyaasi hadduu la maqan minus noqon lahaa okay adi kaas waxba iskama bedelin normal buu noqday kan fiiri 0.1 ayuu ahaa 0.2 ayaa la qiyaasayay laakiin muxuu noqday 0.3 si fiican kala garay 0.3 ayuu noqday taamin waxay ka dhigan tahay lacagtaasi marka kan horta wuxuu naga noqday normal kan kale wuxuu noqday positive okay kan kale aan eegno wuxuu ahaa markii hore 3.1 3.2 ayaa la qiyaasay 3.4 ayuu noqday okay kaas wuxuu noqday positive sax okay kan waxaa la qiyaasayay oh this one last waa haa kan kale waa news kale oo implement waxaa la qiyaasayay this one 203 ayaa la qiyaasayay soo muxuu noqday 203 ayuu ahaa marka hore 209 kan wuxuu ka yani xataa macalkii kale ku jirta haddana positive u noqday the reason waxa weeyaan marmarka qaar ba waxaa jirtaa in lacagtu marka newska soo baxo oo kale lacagaha qaar newska qaar ba waxba u noqdaan qaar baa minuska wuxuu noqdaa marmarka qaar waxa weeyaan positive oo sababta oo kale lacag walba newska markan gadaal baan ka baran doonaa lacag walba newska waxbaa lagu ilaaliyaa mid baa waxaa lagu ilaaliyaa 50 mid baa waxbaa lagu ilaaliyaa marka kanna positive u noqdaa artan laakiin marka xaggan eegtin maxaa aragtaa markii hore waxaa 203 sidoo kale waxaa 209 baa la qiyaasay 202 haddana positive sheegaya so that means newskaas horta saxdi maaha because of waxaa laga yaabaa marka fundamental ahaan waxaa jirta fundamental ahaan waxyaabo waddankaasi newska haddii tusaale ahaan oo kale aan soo qabanno wax positive oo kale waddanka ka noqonayo tusaale waxaa laga raba waddankaasi newska hadduu positive noqdo inay minus ku noqonayso oo kale oo aan la rabin waxaas inay kor sii kacaan oo kale that means marmarkaas oo kale waxaa dhici karta in newska positive lagu soo qoro waddanka waxaa la rabay moogtahay wax haddii uu kor u sii kaco oo yani positive soo baxo waddanka ay minus ku noqonayso laakiin la rabo liidashadiisa ay positive ku noqonayso haye maxaa la faa'iidadiisii kor u kiciisiina maxay noqonaysaa minus that means marka newska laftiisa waxay u baahan yahay analysis badan iyo dee adiga waddanka inaad wax newsyo badan baadhid warar badan akhridid marka already adigu warkan hadda muhiim aha so warkanaa ka xoog weyn marka okay labadan war baa ka xoog weyn CBA ka xoog isagu mar baa NFB ahaan buu soo baxay laakiin hadda kan wax saa si weyn ma oran karo soo markiiba kanba iska raacay maadaama dee doolarkii warkan noqdo warkii xooganaa jihadii kale u kixiyey isna already isagoo xataa mayna soo saaray warkan iska dabagalay daaminas waxaa laga yaabaa saan hadda idiin sheegay waxaa jirta in marmarka qaar war fiican oo lacagta u fiican inuu waddanka dhibaato ku keeno soo xaggan laga soo saaray okay qodobkaas sharaxaadiisu u baahan yahay kolley mudada badan baa ku jira I hope saan filay okay bish maxay ahayd haweyaan 11 January asagana 11 January wixii ka dhacay marka suuqa okay waxaan ku raadinaa 11 January waxaan maraynaa waa ka newska fiiri sumaarkiis waa kaas maxaa dhacay 11 January news waa ka baybi waaye sumaarkiis waa ka newska baybi waaye okay timeka uu soo baxayey waan ku laabanaa si in isagii aanu xaqiiqsano timeka uu soo baxay goormuu ahaa afartii uu soo baxay sumaarkiis afartii barkii iska marka xagga hoose afartii barkii waa kandhalkii samaysmay eeg maxaa dhacay maalinkaa hata waxaan isla eegina maalinkaas in jihada suuqa iyo inay iswaafaqsanaayeen
jihadii suuqa inay iswaafaqsanaayeen newska soo baxayay. Okay, let's go. This one. Shantii bixi waxaas maahayn. Kan so kan maahayn. Kootan bixi waa kaas. Okay. Eg maxaa dhacay jihadii suuqa iyo isma waafaqsanayn maalinkaa suuqa sir buu sheegi so hadda halka waxaad uga jeedaa inuu samaysanayo suuqu inuu suuqu samaysanayo higher high higher low higher high higher low so higher high ugu dambeeyey higher low ugu dambeeyey la jebiyey so lower low aan haysano one more laakiin higher time frame waa uptrend so xaggan buu suuqu ka dhaqaaqay marka Boom. isla markii waa la soo celiyey so maalinkaas oo kale liisku saameyn male laakiin intan wuu orday oo wax saameyna mu yeelan de markii waa iska artaan kadibna waa consolidation buu galay raag maalinkaas oo kale maxaa iska soo horjeestay jihadii suuqa iyo iska soo horjeestay newski so newsku awood buu lahaa laakiin newski awooddii intii leeg lahaa saameyntiisu taasay leekaatay bal ka war maalinka NFB iyo structureka suuqa su kaa waafaqaan kandal dheer ba arkaysa sidaa ordo waa yaabaysaba maxaa keenaya arkaysa maalin NFB soo baxay NFB waa laba kandal ah saa istaagtay xaggan soo orday dig 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 markay xumaatay eeg marka technicalka iyo waa in iska waafaqaan suuqa waxaweye technicalka iyo fundamental waa in iska waafaqaan so fundamentalka hadda ka hor anu hadda maba eego fundamentalka sababta waxaan eegin technicalka ka aaminsana waxaan aaminsana haddii technicalka tusaale hadda kale inta badan fundamentalka suuqa uu dhaqaajiyaa wuu jiheeyaa wax kale oo dee kusoo kordhiya ma jirto marka fundamentalka suuqa yani ma kala bedeli karo hadduu kala bedelayana mar technicalka uu rabay kala bedelo yani uu kala wareego tusaale ahaan newska markuu kasoo baxayo meeshan oo kale suuqan selka news kasoo baxaya xagga hadduu suuq marayo oo suuqana sel yahay newskaas sel buu soo geynaya okay waxaa dhici karta newska war positive inuu kasoo baxo already positivekiis wuxuu noqonaya kan dhalinyara saa kor loogu kaxiya manipulation sameeyay hoos soo daadanaya simple ma dhacayso onkir waqti in newsku suuqan kaxeeyo isagu kala walaaqo oo jiha gaara u sameeyo wuxuu rabo ka samaysto so marka taas way fundamentalku xaggayga aniga muhiim ah waxa keliya waxaan iska ilaaliyo weeyeen dee kumana taradgaray waagi hore ku taradgaran jiray laakiin hadda kuma taradgaray waxaan raadiyaa trade a plus ma raadiyo taradiyo wax walba iga qaada maaha marka eeg haddii aad rabtid marka inaad newskan oo kale inaad ka taxadirtid oo maalinkaas oo kale sheegi kartid meesha uu aadiyo waa in aad garanaysaa jihada suuq jihada waa sel soo maaha news waa soo baxay harsa newskaas waa sel already waa sel waa iska sheegaysaa laakiin waa in saan loo warlo somaa loo warhamayst meel waa in suuq meel kuu jooga markaas oo kale supply ah isagoo supplyga kuu jooga news baa kuu soo baxaya okay newsku waa macquul inuu xaggan qaado oo baydan jibiyo oo xaggaas sare aado marka maxaa keenaya suuqana waxa weye wuxuu joogaa meel dhimaana oo dhaqaaqa baa meel dhimaan yimi sidoo kale meesha waa meesha suuqa laga celin lahaa oo laga jebin lahaa si bay loo sii aado marka taas waxaa iska ilaalinaysa marka iska ilaali kan inuu joogo meel dhimaan ama meel supply oo kale ah waxaan leeyahay meel dhimaan yani dhimaan suun oo kale inuu kugu joogo waxaa dhici karta meel adag inuu kugu haysto suun adag adigina marka laakiin waxaad eegaysaa kan hadduusan wax suun adag ka hooseyn ama taargetkii loo socday kan oo kale uu gaari rabo waa fursad maalintaas oo kasoo tumaysaa dee sababta taargetkii kan la rabay kanima gaadhin kana markaa la rabaa in lagu gaadho so marka waa chance weeyaan good waa inaad soo tuntaa marka eeg marka hore suuqa technicalkaaga meel sii saaro sii qorshayso bis waxa weeyaan xagga ka soo tun okay hadda newska beri haddaan nahay waxaa ku aadaya newska beri waan isla eegno hadda sii qiyaas qaabku noqon karo okay doolarka marka xagga iska dhigno lacagta ugu badan aan tarargareyn waa euro okay let's see how haddii aroortii suuqu berito aroortii markan dalku furmo toos bay u aado newsku sel buu noqonaya hadduu kan dalku meelahan igu meeraalaysto aroortii oo xaggan hoos iska soo aado suuq hoos socdo ilaa iyo meeshan dimaankan hoos soo aado daamin waxay ka dhigan tahay xilliga dambe ayuu newsku bay aadi doona oo suuqu bay ba markaa la geyn doona marka eeg adoo waxaa ku xisaabtamaysaa gelinka hore suuq xagu aadayo aroorti suuq marka hadduu aroorti suuq bay aado
waxaad rabtaa meel sablaayo badan inay ka horeeyaan. sablayada hadduu gaadho kadib waxaad eegaysaa dhaqaaqan hayar hay haylow hayar hay haylow, kadib isaga marka lasoo jebiyo lagu laabto oo low cusub ku bilaabmo, xagaas baa kasoo raacaysa taargetka meelaas meesha ku ahaanaya. Simple. waaba intaas. waa niiska beritoole. marka innaga dantu waxay noogu jirtaa, innagu maadaama aan hadda eeg waxaan la soconaa moogta suuqan, hadda waxaan haysanaa lower high aan haysanaa. So maadaama kan noo noqonayo low cusub, waa in lower high laynoo soo sameeyo, xaggaa la geeyo, kadibna dhaqaaqan aynu lower time frame kula degno dhisno, kadib laynoo soo jebiyo, kadibna aan soo sel garayno ilaa iyo kan laga soo hoosmarayo. Okay, waxaan macquul mata xaggaa in la jebiyo, adiga macquulkeeda iyo waxa shaqadaada maaha. haddii aad filanaysid xaggaa in la jebinayo, waa sheeko dheer. oo xaggaa in la jebiyo waxaa ka horeeya in meesha waxan oo dhan weyn macnaha suuq ay ku sameynayaan cadaadin. tusaalaan suuq saas xoog baa loo soo cadaadinaya. ma fahantay? marka it means suuqana waa suuq cusub oo dee hadda baydan muddo dheer baa bay loo socday lahaa. marka way adag tahay in berito baydan la qaado oo suuq bay aado, way adag tahay. so maadaama ay adag tahay, laakiin dhib kalena way jirtaa oo waxa dhimaan baa la joogaa. suuqa meeshii loo waday waa la keenay, inagoo beri taarget gareemaysiin oo biyadaas oo kale inagoo taarget gareena. marka wixii adag si advanced aan ba u sharaxayba. marka hadda aan ka soo laaban xaggaas. muhiim ah hadda xagga inaan sii gallo maan ka sheekeyno. so laakiin muhiimadda waxay tahay bal inaa beri keliya waxaan tusiyay in berito newskaas aan qiyaasi karo dhinac caadi ah. marka aniga newska berito la soo baxaya haddii sida aan idiin sheegay ay dhacdo, aroorta hore dee suuq bay leegeeyo, dee galabka dambe newska afar soo baxay waa soo sel garanaya simple. laakiin ku xasuusnow haddii eerl inta la kaxeeyo suuq xaggaa la geeyo isla markiiba la soo celiyo, markaasina waa baab gaara. laakiin marley waxaa qurux badan in markaa xaggaha sare lagugu ilaaliyo. haddii isla markaba uu suuq soo noqdo oo soo laabto, waxay ka dhigan tahay dee suuqaas ama liquidity baa dhaci doonta ama bay baa la geyn doonaa. it means waxaasoo dhan waa inoo socdaan. so waa liquidity-ga iyo waxaasoo dhan waan baran doonaa. weliba si gaara liquid dhowr qaab bay u dhacdaa. marka dadka qaabka qaabab yar bay sheegaan oo si kooban. marka waxaan filayaa caawa inaad horta intaa fahanteen. haddaa fahanteen jaadka bal igala hadla. qodobkeedu wuxuu ahaa waxaan hore usoo qaadanay casharadii basiga. casharadii basiga waa kasoo baxnay markay dhammaadeen. casharadii basiga waa 10 cashir. markii 10 cashir soo dhammaadeen, practice-kan bilowna. okay, practice-kii waa dhammaynay. wuxuu noqonayaa kii u dambeeyey caawa. practice-kii kan ayaa noqonaya. okay, marka horta casharadii hore waa casharadii yacni basiga waa soo qaadanay. practice-koodina waa kana caawa ugu dambeeya. so cashirka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa risk management-iga. risk management-igaas haddii marka haddii risk management-igeena hore inoogu yaala isagoo cashar, marka isagoo cashar haddii inoo yaaldo qofku waa daawanaya, riski ku celiso waa fahmaysaa. risk management casharka laakiin ugu dambeynaya kama noqonaya fundamental. maxaa inoo hiyay casharada city anoo bilaabmaya, qof walbana isu diyaariyo de casharadaas. casharadii dee aad ku shaqaysan lahayd, so intan basic ba iska ahayd qofku inuu fahmo. casharada markaan dhammaynay city-na kadib toos waxaan u aadaynaa practice-kooda. practice-kooda markaan dhammaynana toos suuqa loo soo geliyaa, training balaankii iyo waxyaabahaas qorshayaashaas baynu bilaabaynaa. qofka akoomada furi lahaa, sidoo akoon maamuli lahaa, sistamadaas gelinaa, adigu talooyin psychology waxyaabahaas system noocaas tala bixin ah ayaan wan doonaa insha allah. maalmaha qaar waxa weye si life aan wada trade garan doonaa. maalmaha qaar bias baan soo diri doonaa already. xaggaas bay shaqada ka socon doontaa. marka insha allah usbuucan waxaan rajeynaya usbuucan soo socda inaan waxa weye casharada adigu casharo diyaaris u baahan yihiin, laakiin cashirka u horeeya haddaan soo dhigno waxa weye casharada kalena way kusii xigaan. marka insha allah intaa hadda wixii ka dambeeya oo caawa ay ka bilaabanto, qof walbaba haddaba intan inaad fahantay adigu istijaabi. soo dhis, practice garay, soo sawir, iskoorka soo dhig, maxaa iga khaldandhe, wixii haddaa aragti qaarina kaa khalday aniga ii soo dir, anaa kaa saxaya. adiga dadaal intan samey inta cashiradan kale aanay bilaabin, sababtoo casharada waad ka gudbaysaa.
cashiradan haddii aad wax ka fahmi weydo dee gaab bay kugu noqon hadhowto xagga markaa tegid waxaan weligaa waxaarsan ma arag way kugu adkaan doontaa meesha supply ah magacyo kale yeelan doonta okay meesha lower low taqaanid magac kale u yeelan doona lower higher high meesha magac kale u yeelan doona alaga wixiina sugaa badbedelaan muhiim aha laakiin magac kala bixin laakiin dee sida aad hadhow istaraatiijiyad marka tan bilow iska ahayd oo qofka dee lagu fahansiin laakiin يعني qaabkay magacyada kale u yeelanayaan waxay ku xidhan tahay sidaad uga shaqaysanaysid fahmaynis marka uu isbedelayaan wax walba qof walba waxa weeyaan hadda sii diyaar garoobo casharadana haddaad fahanteen aad fahantay haddii kalena aad fahmina imanka practice sameeya ku celceli waqti badanna sii